Siciid Cabdilaahi Dani dhaqaale xumi ayuu wajahayaa. Beesha caalamka ayuuse kaga dacwooday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Muuqaalkan ayaan ku soo koobi doonaa warqad qarsoodi ah oo xafiiskiisa laga diray. Nuxurka qoraalka iyo qorshaha Siciid Cabdilaahi Dani xilligan uu ka leeyahay qoraalkan uu u diray beesha caalamka. Haddii aad nagu cusubtiin fadlan ku soo biiri page-keena oo ka mid noqda saaxiibada inagu xiran si aad halkan uga heshaan warar warbixino muuqaal aan had iyo jeer halkan ku soo baahino. Siciid Cabdilaahi Dani madaxweynaha maamulka Puntland waxaa xafiiskiisa aynu ka helnay nuqul ka mid ah qoraal uu u diray beesha caalamka uu kaga dacwoonayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kuna soo bandhigayo dhaqaale dari baahsan oo maamulkiisa soo wajahday 18 bilood ee ugu dambeysay. Madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani waxa uu xilligan ka qeyla dhaaminayaa isla markaana uu codsi u dirayaa beesha caalamka isagoo dacwad ka ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxa uu dalbanayaa in la xaqiijiyo si cadaalad oo sinaan ay ku dheehan tahayna loo qaybsado deeqaha iyo gargaarka horumarineed ee beesha caalamka ay siiyaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Codsigan loo diray hay'adaha iyo dalal badan oo caalami ah ayuu Siciid Cabdilaahi Dani hoosta kaga xariiqay waa warqadda qoraalka sirta ah aynu helnay walwal weyn oo uu ka qabo waxa uu ugu yeeray siyaasadeen sii kordhaysa ee deeqaha ay dowladda federaalka ka hesha beesha caalamka. Siciid Cabdilaahi Dani waxa uu qeyladaan ka muujiyay lacaga ka yimid deeq-bixiyaasha caalamiga ah. Uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya u adeegsatay ajandayaal siyaasadeed taas oo uu ku andacooday in ay socotay tan iyo markii isaga dib loogu doortay hoggaanka maamulka Puntland. Siyaasadeenta mashaariicda Puntland loo qoondeeyay barnaamijyada iyo taageerada miisaaniyadeed waxa ay socotay 18 bilood ee ugu dambeysay ayuu ku yiri qoraalkan sirta beesha caalamka uu la wadaagay Siciid Cabdilaahi Dani. Siciid Dani ayaa sheegay inuu isku dayay in arrintan xal uu kala gaaro dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo bangiyada horumarinta balse aan lagu guuleysan qorshahaasi oo uu dhowr jeer uu isku dayay. Wuxuu sidoo kale ku eedeeyay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inay bilaabeen ololo war xumo tashiil ah iyo warar been abuur ah oo la doonayo in lagu qalqalgeliyo dowlad goboleedka Puntland dhismihiisa sida uu hadalka u dhigay Siciid Cabdilaahi Dani. Waxa uu kale uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la helo hanaan loo wada dhan yahay oo ku saabsan deeqaha dibadda, ganacsiga, heshiisyada, kheyraadka dabiiciga ah iyo arrimo kale ee waaweyn ee saameynta ku leh danaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ay ku jirto Puntland. Waxa uu ku dooday in falalka villa Soomaaliya ay isaga hindhatirayso waajibaadkii dastuuriga ahaa iyo xaaladaha taagta daran ee qaranka taas oo halis gelin karta xasiloonida iyo midnimada Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay. Isla markaana ku qeexneed warqadan qoraalka sirta beesha caalamka uu diray Siciid Cabdilaahi Dani waxa qeyladaantiisan ay ku soo aadaysaa xilli uu wajahayo dhaqaale xumidii ugu baahsaneed. Warqadan sirta ah ee loo diray beesha caalamka uu dacwada kaga yahay dowladda federaalka Soomaaliya Dani kuna cadeynayo in dhaqaale dari baahsan maamulkiisa uu wajahayo waxa ay ka koobneed 2 bog waxaana lagu qoray ereyo u muuqday kuwa uu ku doonayo in indhaha beesha caalamka uu ku soo jeediyo villa Soomaaliya si la mid ahna meesha uu gabi ahaanba kaga saaro qaladaadka siyaasadeed ee Dani uu galay ee keentay in xiriirka labada dhinac uu xumaado waa villa Soomaaliya iyo Puntland. ilaa gunaanadka muuqaalka haddii aad ila soo gaarto aan kaga mahadcelinayaa aragtidaada qaybta comment kaga soo dhiibo muuqaalkana la wadaag saaxiibadaada. Nabadgelyo.